waxaa idinku dhici doono mid aad la googo'daan cudur aad la googo'daan baa idinku dhici doono markaad yatiim muslimiin ah oo saa'imiin oo heli taqwa ah hadda gabadha yartaa waa heli taqwa weeye macallin maxamuudow cayr intii ku istaagtaa kugu filan cayr cadaalad darro inaad agoomahooda ku dhacdo oo aad dad isku aadiso aan dalka ay u garsoorayaan aan shaqo ku lahayn waa laga fiican yahay kugumana filna kumana qaado macallin maxamuudow cayraad ka dhalatay cayr dhex maw haddaad wax leedahay cayrku dhexdooda ka qaado soomaali dhexdeeda ka qaado dadka ha dhicin ilmaha ha dhicin agoomaha ha dhicin islaamkana ha dhicin da' baad joogtaa wakti baad joogtaa waktigaagii waa dhow yahay qaatimo xumo inaad ku dhimatana lama rabo ilaahay wuxuu ku siiyana waa kugu filan yihiin macallin maxamuudow isleeyihiin maanta maadaama koonfur galbeed ay ka soo jeedo waxaan hala dhac habardigir in ha dhacdo taas waa ka xumahay ayaana gabartiisa guuri ma laha reer riiban gabartooda guuri ma laha ani waa la yaqaanaa firdoos axmed diiraa la dhahaa meeshaan ka soo jeeda iyo fibilkeyga meesha ay joogaan haddaan isleeyihiin hala dhaco oo macallin maxamuud oo ahlu sunno weligiis sheeganayo isbaaro u taale maxaa la dhahaa walaweyn oo laba fara badnaa joogay lagood okyaa fara badan ku tukada la dhihi jiray maalintuu joogo muslimka ma ka sii yahay haddee reer liibaan ayaala iga qabo waayo oo reer ayaalihiina iisoo adeegsaday ani weligay alaha dhulkan waa daba soconaa 100 sano hadday kasoo wareegto haddaa ani dhinto oolaadeedaa joogaan dukumiinti saxan haastaa asaga kunta islaasan kadib beelbeel uu igaga qaatay beeladan waxaan ka codsanaa inay arrintan fiiriso casha seen maxamuudow ha noqonin hadda ka hore ama siyaasadna ma dhegeysta hadda ka hore anoo jiko baawur saarna waxaan maqlahay waagii sheekh axmed shariif waagii sheekh shariif sheekh axmed asoo dhahay maxamed dheere sheekh shariif sheekh axmed aawe sheekh shariif sheekh axmed aawe muu hadlo 2010 ma afduuwan yahay bistoolad maa lagu haystaa hadda adi ma afduuwan tahay wadanka waxaa u qabatay waa rafaaday waa ku ognahay kusoo dhaweynanaa laakiin ani keligay ma aha 200 naaga oyso dad waxaa jira maanta awoodin inay TV istaagaan dad waxaa jira dhulkooda in la dhaco trisboor awoodin jaal madaxweyne guddi u xil saar arrintaan adi haddaad mashquulsantid waan ogyahay oo dhib ku haysto adduun kasta kugu furaya soomaali dhibkeed badan madaxweynehintid guddi xil saar oo degmo kasta guddi u xil saar dadka dhibaataysan arkaayo waagii asxaabihii abubakar canwa ilaaha ka raali noqda abubakar sadiiq markuu xilka qabtay guriguriyo haweenkii dhagtuu saarahay yaa wax cuna yaa gaajaysan hadda waktigeeda hadduu 30 sano oo rafaadsanaayo hadda inaad dhisita aragtaa guddi u xil saar oo dadka dhulka laga dhaxay dhulboola imaaday soomaalida oo dhan aday kugu eedaanaya madaxweyne waxaan rajeynaya wasiiro waa la hadlay xildhibaano waa la hadlay horin arrinteedu way wada ogaayeen haddana kilibkan way arkayaan inay madaxweyne arrintan gaarsiiyaan ummadda ha arko haddaad wax leedahay oo wax sharciga oo xalaala aad haysato yaa adoon garsoorka isku aamin oo garsoorka gadaal ka istaagin dadka soo dhex fariiso wixii aad leedahay xalaal maalin cadaa la qashaahe 6 saac qaado haddaadan wax lahaynna macallin maxamuud oo qabsoon sharci darrada ka joog xaraamta ka joog xalaashaa kugu filan diintaadaa kugu filan ilaahay baa kugu filan macallin maxamuudna intaasaan leeyahay waxaan rabaa marka madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha nin hadduu inta ilmo dhalo xoola raacsado ilmaha awgeeda raacsado wuu yaqaanaa dadka noocaasa oo garsoorka noocaasa oo qabiilka ah loo keenay inaysan ummadda ku sii dayn ay mas-uulka ka yihiin yaan horta ka codsanaynaa madaxda dalka oo ay dabagal ku sameeyaan oo dadka shacabka oo cadaalad xumada ku dhacdo gadaal loo fiiriyo waxay ka cabanayaan intaasaan horta ka codsanaynaa madaxda dalka dhulkaas waxaa weeye xoog baa lagu qaatay dadka masaakiinta oo yatiintana waxay u baahan yihiin garab istaag qof kastoo alla ka baqaya inuu garab istaago midna waa u sheegayaa nimanka dhulka dhagaxa ku dejinaya dhirsayow wallahi ma calfanaysaan waa degdegteen aad u degdegteen ma ahan mid la isaga hari doono oo aad ku tii doontaan ma ahan mid la isaga hari doono waa degdegteen damaa khaldan baa idin galay ka noqdaan idin dhehi lahaa ilaahayna u noqda dhulkaasna faraha kala baxa agoon baa leh soomaali oo dhan indhahoodaan idinku soo joodinaynaa waad dhiman doontaan si foolxun baad u dhiman doontaan bilxaqiiq si foolxun oo dadka bilaadanka markuu cudur ku dhaco cudur qaar haduba loo heli baa jiro oo qofka uu googo'o
waxaa idinku dhici doono midaad la googo'daan cudur aad la googo'daan baa idinku dhici doono markaad yatiim muslimiin ah oo saa'imiin oo ahlu taqwa ah hadda gabadha yartaa waa ahlu taqwa weeye waana gabar waan dhiso halla ilaaliyaa la yidhi qofkii damaaci uu ka galo hanti ay leedahay sidee ugu noolaan doonaa ma dhacayso inuu ku noolaado waxaan idiin sheegaynaa xildhibaanow meeshaan garsoor ma jiro dalkana madaxweynuu leeyahay madaxweynaha garsoorka inuu fargeliya asaa laga rabo waxaan idinka codsanaynaa xildhibaanow iyo siyaasiyiinow dhulkan in loo saaro guddi madax bannaan oo culummo ah sida sheekh bashiir oo kale dadka culummada majmaca ilaahay ka baqayo in loo saaro xildhibaanow yaan idinka codsanaynaa arrintaas meel kasta oo idinla gashaba inaad gaarsiisaan guddiga garsoorka ha la gaarsiiyo madaxweynaha ha la gaarsiiyo culummaan u baahannahay dhulkan loo saaro dacwadiisa loo saaro ayaan u baahannahay ayagaa calli ah ayaana kala saarayo billahi tawfiiq waxaan ka codsanayaa in lagu difaaco nidaam dowladeed iyo nidaam qoyseed anigoo ah gabar taas ma dhicin maalinta u horeysay waa lay qabtay anigoo 3 qof ah ilma awoon dariskeyga ah iyo aniga iyo wiilka hadda buurgiisa u taagan yahay oo dadkiisa oo u istaageen wixii dowlad ku jiro oo dhaxin mala taabo karo waa kaas 80 beenta uu sheeganayo ka mid ahay waana la xiray 3 guuraana la dhahay adduunka ma dhicin qof la xiraayo guura la dhahay gudoomiyaha maxkamadda inay taga ahayd dacwa ay bilaabatay waxaa la yidhaha dacwadaada waa bilaabatay gida haddana maalintii dambadan dumis liigu waxeeyey ma dhicin in naga sugid ee dhul tagta ee dumiso aniga waxay dhacay tolkeeda waaye waxa weydiisanayaa ehelka kale inta aan ilmaha u dhalay inta hooyada iyo fiirkeeda aan garab weydiisanayaa aniga dhulkan ma dhicin 1969 aan dukumiinti u wataa uu macalin maxamuud leeyahay inta islaam ummadda laba maxamuud oo ogtahay macalin maxamuud inuusan dhul 59 sano ka maqnaaneen 10 madaxweynea soo martay 21 sano maxamed siyaad bare wadanka u haystay macalin maxamuud intuu jiray hal nin ceer ay intuu fadhiisto ama habar gidir ah dhahdo macalin maxamuud oo dhulkan waa isnaqaanaay dowladda xagga noo dhig xataa inaad dhul animeeyid ee beerka halaanka ay maqnaaneen intee jirtay macalin maxamuud waa la ogyahay oo sunno waay waa la ogyahay isbaara dartas u taal anaga reer koonfur galbeedana haddii habar gidir ee luqad isleeyihiin naagta maadaama koonfur galbeed ay ka soo jeedo waxaan hala dhac habar gidir in ha dhacdo taas waa ka xumahay ayaana gabartiisa guur ma laha reer riiban gabartooda guur ma laha aan waa la yaqaana Firdaws Axmed Diiriya leedaha meesha ka soo jeeda ifidilkay meesha ay joogaan haddii isleeyihiin hala dhaco oo macalin maxamuud oo ahlu sunno weligiis sheeganayo isbaaro u taale maxaa la dhahaa walaweyn oo ka laga fara badnaa joogay labad okay fara badan ku tukada la dhihi jiray maalintuu joog muslimka ma ka sii yahay haddii reer liiban ayaana iga qabo waayo oo ayaanihina ii soo adeegsanay ani weligay alaha dhulkan waa daba soconaa 100 sano hadday ka soo wareegto haddaa ani dhinto oo laadeeda joogaan dukumiinti saxan haastaa asaga kunta isaasan kadib beebeen uu iga qaatay dowladdan waxaan ka codsanaa inay arrintan fiiriso Xasha Seen Maxamuudo han noqonin hadda ka hor ama siyaasadna ma dhigaysa hadda ka hor ama jiko baawur saarna waxaan maqlay waagi sheekh Axmed Shariif waagi sheekh Axmed asoo dhahay Maxamed Dheere sheekh Shariif Axmed aawe sheekh Shariif Axmed aawe muu hadlo لو كنت بقول ما أفضل وياهي بستوعب ما وجه استهدا أدي ما أفضل وانتهي ودك وحى وخبطه وعرفاد وكنا وكسور بيننا لكن أنا كل يوم معها لو بخوا ما على أوسو بدو حاجة ما أنت أول إنه في استاذ بدو حاجة مو كود اللي دعوة ترسبور أولي جال مدحوني بدو حصار أنت هذا باب مشكور سنتي دول أوكي أو نبكي أدوك السبب فريا سومال نبكي برا مدحوني بدو حصار oo degmo kasta gudu xilsaar dadka dhibaataysan arkay waayo asxaabi Abu Bakar aan walaa ka raawo qod Abu Bakar Sadiq markuu xilka qabtay guriguri haweenka dhagtu saaray yaa wax ila yaa gaajaysan hadda waqtigeeda haduu 3 sano
oo rafaadsanaya hadda inaad dhisita aragtaa guddi u xilsaar oo dadka dhulka laga dhacay dhulboola imaaday Soomaalida oo dhan aday kugu eedeeyay madaxweyne waxaan rajeynayaa wasiiro waa la hadlay xildhibaano waa la hadlay horin arinteedu way wada ogaayeen hadda kilibkan way arkayaan inay madaxweyne arintan gaarsiiyaan ummadda ha arko